sida ay baahisay warbaahinta dalka India dawladda India ayaa waxa ku guuleystay siideynta haweeney u dhalatay dalkaasi oo lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya. Haweeneydani oo lagu magacaabo Afreen oo 30 sano jir ah ayaa dadaalo dheer kadib waxaa 28kii bishii Maajo lagu guuleystay in laga sii daayo gacanta kooxo ay ku jirtay kadib dadaalo ay ka wada shaqeeyeen dawladda India iyo tan dawladda Soomaaliya. Afreen ayaa magaalada Hyderabad ee dalka India ku guurstay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Ducaale ayagoona sanadkii tagay iyaga 3 caruur ay dhaleen booqasho ku soo aaday magaalada Muqdisho. Afreen aabaheed Sayid Garoof Cali ayaa waxa uu sheegay in bishii Febraayo ee sanadkan uu ku wargeliyay maqnaashaha gabadhiisa wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas India. Inkastoo dawladda India aysan safaarad ku lahayn Soomaaliya, haddana arrintaasi siideynta gabadha ayaa waxaa ka shaqeeyay safaaradda ay wasaaradda arrimaha dibadda India ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, iyadoona sidoo kale siideynta gabadhaasi uu door muhiim ah ka ciyaaray ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Maanta ayaa waxaa lagu wadaa in Afreen ay gaarto dalka India gaar ahaan magaalada Hyderabad oo ay ka soo jeedo.